magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalka Norway ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran taa oo loogu dabaaldegayay 65 guuradii ka soo wareegatay maalintii xurriyadda iyo curashada qaranka Soomaaliyeed iyo midowga gobollada waqooyi iyo koonfur ee dalka Soomaaliya. Munaasabadan 65 guurada ah ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweynaha kala duwan ee ku nool magaalada Bergen iyo nawaaxigeeda iyo deegaanada galbeedka dalka Norway. waxaa goobta laga jeediyay khudbado kala duwan kuwa oo lagu xusayay la iskuna xusuusinayay munaasabadan qiimaha iyo qaayaha ku leh qarannimadeena iyo jiritaankeena. dadkii meesha ka hadlay ayaa isla wada qiray in ay maanta oo kowda luuliya tahay maalin ku weyn ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto, waxaana looga dabaaldegay deegaano kala duwan oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ah. munaasabadan oo sidoo kale kaalin mug iyo miisaanba leh ay ku lahaayeen caruurta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Bergen iyo nawaaxigeeda ayaa waxa ay ku soo bandhigeen ciyaaro ka turjumayo hidaheena, dhaqankeena iyo taariikhdeena Soomaalinimo, taasoo hab ciyaareedkooda ay aad uga wada heleen dhammaan intii ka soo qayb gashay munaasabadan. waxaa sidoo kale goobta lagu guddoonsiiyey kooxdii ku guulaysatay koobkii toddobaadka xorriyadda ee kubadda cagta, taa oo matalaysay ururka haweenka Soomaalida galbeedka Norway. munaasabadan qiimaha badan ee qarankeena iyo ummadeennaba ku weyn ayaa waxaa door muhiima sida aan hore u xusnaba ku lahaa caruurta Soomaaliyeed ee munaasabadan goobjoogga u ahaa. waxaana makarafoonka Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway dhex dhignay si ay u cabiraan shucuurtooda, dareenkooda iyo weliba waxa ay halkani uga marin lahaayeen ummadda Soomaaliyeed. sitaa lamid ah ayaan makarafoonka Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaan dhex dhignay dadweynihii kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasabadan si ay u cabiraan shucuurtooda, dareenkooda maalintan qiimaha qarannimo ku leh guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka iyo dibaddaba. halkan aniga iyo wiilasha awoowaha u ahay Irshaad Isxaaq waxaan hambali u marinaynaa hawada ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto maalintii xornimada, maalintii midnimada, maalintii calanka. waxaan leenahay meel kastoo aad joogtaan sanadkan sanadkeeda ilaahay nabad iyo barwaaqo Allah noo gaarsiiyo, waddankeena Allah noo hagaajiyo. wacan kooda luuliyo hambaliyo kun jeer hambaliyo markaan sanadkiisa ilaahay nabad noo gaarsiiyo anagoo wada caafimaad qabno. hambaliyo gudahay Soomaaliya waxaan leeyahay hambaliyo Soomaaliya meel kasta ay joogaan Soomaalida waa hambalyeynaya, dhalinyaro, oday, waayeelo kulli waa hambalyeynaya. ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan ugu hambalyeynaya kooda luuliyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. waxaan leeyahay hambaliyo kooda luuliyo, ilaahay anaga dhigo kuwa isku xirnaado, ilaahay waddankeena noo hagaajiyo. maanta meesha ma ku dabaaldegayna waa noo shidan tahay, qof naga qasana ma jirto reer Norway. dhammaan ummadda Soomaaliyeed kooda luuliyo ayaan ugu hambalyeynaa. Soomaaliya toosoo isku tiirsanayo had makiina taagdarin taageero weligin. Soomaaliya ha noolaato. waxaan iga soo hambalyeynaa magaalada Bergen Norway. Soomaaliya ha noolaato. maanta waa kowda luuliyo, waxaan leenahay hambalyo, caafimaad ku waara, ilaahayna xafida meel kasta aad joogtiin. xagga waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaan yar iyo weynba, caruur iyo cirooleba. hambaliyo baan leeyahay. maanta waa maalin weyn oo aad qulubta dadka Soomaalinimada ku weyn tahay aad ugu weyn. marka waxaan leeyahay
xilligan xilligiisa ilaahay bashbash iyo barwaaqo iyo midnimo iyo gobonnimo iyo qalbiyo furan iyo sasaamax iyo cafis ha nagu gaarsiiyo baan leeyahay dhammaan. waa maalin nagu weyn oo kowda luuliyo waxaan hambalyaynaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. waxaan u hambalyaynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto hambalyo kowda luuliyo. dhammaan waan u hambalyaynayaa dadka Soomaaliyeed kowda luuliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala sanadkiisa iyadoo xorriyad iyo cadaalad intaba insha Allah la hayo nabadgelyadu ay sii adkaato. waa maanta aan ku faraxsanahay anoo dhinaca garabka midigta ku haya imaamkii magaalada Bergen Sheekh Cabdiladiif inaan halkan ummadda Soomaaliyeed ugu wada hambalyayno. ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay hambalyo luuliyo waa maalinta farxad leh waa maalin reer Noorweed reer Bergen gaar ahaan Bergen ay maalin qaasa dinaantaan ku magacahay sankunaafnaba ogoli inuu iga sarreyn karo anna gorasho sodortaan sooriya ruux uga madhigo Soomaali baan ahay. munaasabadan qiimaha nagu leh ayaa waxa ay ku soo dhammaatay si aad u wanaagsan iyadoo dhammaan intii ka soo qayb gashay ay ka maqsuud yihiin sida ay maanta ugu dabaaldegeen u xuseen isula xasuusiyeen maalintan qarannimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ku weyn. halkani waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana barnaamijkan idinla socodsiinaya aniga oo Cabdullaahi Shiine oo idinkaga tegaya maalinteeni haddii ay samaatay waa sabab barwaaqo calankana salaama Soomaaliya ha israacdo.